maskaxdaada kobci maankaaga kori macnaheedu waa murtida ku dhaqan maamuuska diintiyo kana sheegtan maadiga mareegteedu waa naftaada mas'uul ka noqo mansabkaaga ha seegin maskax eebba ku siiyana maqaamkeeda ha diidin kor u qaadaha kaabaha bulshada maan kobci السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتا قالقا كسو دوادا فيديو حسوب فيديو جينا وحانكو لفكر دونا سدح وي oo lagu baabi'iyo xanaaqo waa dabeecad aad u liidato kaasoo ka dhex saara bulshada aad ku dhex nooshahay kaana dhigo mid takooran maadaama uu yahay xanaaqa shay aad ugu liito isdhexgalka bulshada iyo ka nafsi ahaan qofkaba waxaa looga baahan yahay qofka shaqsiga inuu kontaroolo naftiisa marka uu xanaaqsan yahay lambar 1 gebi ahaanba ka dhaqaaq meesha ama qofka xanaaq idin dhex maray maadaama laga yaabo aflagaado caay gacan ka hadal iyo weliba waxyaabo kale inay idin dhex maraan sidaa awgeed ka aag bedel meesha si nafsadaada aad u kontarooshid lambar 2 neef qaado iska saar haddana qaado iska saar kan waxa waa tikniinka labaad ee lagula dagaalamo xanaaqa maadaama jirkaaga uu noqday mid xirxiran oo cabursan waa hal kaliya ee caburka iyo xanaaqa iyo waxyaabo badan la iskaga saaro lambar 3 jooji ka fikirida waxyaabihii ama gafkii idin dhex maray adiga qofkii kale ha ka fikirin hore uga sii soco hana ku mashquulin waxyaabaha negative-ka ku fikir positive jawiga bedelo jooji ku soo noqnoqoshada ka fikiritaanka wixii idin dhex maray ama gafkii idin dhex maray adiga saaxiibka asxaabta qaaliga fiidiyowgan hadaakeesha like sar channelka subscribe deh hana hilmaamin inaad nala wadaagto fikradaada intaan fiidiyowgan fiidiyow lamid aan kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo waqtigiina ka faa'iidaysta